duursan daawadayaal waa wararka xulay xaqiiqa ee alol tv qaybtan waxaanu idinku haynaa haddii alla idmo dhacdooyinkii u dambeeyey ee colaadda ukraine iyo wadamadiiba inay ku biiraan naasnuujinta kiev taariikhdu waa 18 December 2022 daqiiqayaal mar kale soo dhawaada maayarka caasimadda kiev Vitali Klitschko ayaa sheegay in ay soo celiyeen inta badan isticmaalka korontada iyo biyaha ee gudaha caasimadda Kiev. Warkan ayaa u noqonaya taageerayaasha Ukraine mid lagu diirsado kadib markii maalintii shalayto Sabtidii iyo Jimcihiiba ciidamada Ruushku ay ku weerareen goobaha laga maamulo tamarta Ukraine gantaalo ka badan 200 kuwaas oo gaadhsiiyey khasaare aan weli aanay shaacin. Si kastaba ha ahaatee waxaa hadda soo minanbaxaya muranada ku saabsan wajahaada colaadda Ukraine ee ka soo baxaya gudaha xukuumadda madaxweyne Volodymyr Zelensky. Madaxweynaha ayaa isugu taagan in aan haba yaraatee wax hadal ah lala gelin Ruushka, halka maayarka caasimadda Vitali Klitschko iyo generaalka ugu sarreeya saraakiisha ciidanka Ukraine General Finelshey labaduba ay taagan yihiin hadaf ah in la gaadhay waqtigii wadahadal la geli lahaa inkasta oo aanay carabka ku ballaadhin. Waxaa jira warar sheegaya in generaalka loo diyaarinayo kii wajihi lahaa ama geli lahaa wadahadallo marka lala galo dowladda Ruushka. Tiunkan ayaa si weyn u soo shaabaxay kadib markii ciidamada Ruushka iyo wasiirka difaaca Ruushka wasiir Sergei Shoigu ay kala duldhaceen ammaan iyagoo ku tilmaamaya nin waayo aragnimo leh ahna qof mas-uul ah. Tan ayaa dowladda Mareykanka ee naasnuujiyaha Ukraine iyaguna ay sheegeen in generaalku yahay nin lagu kalsoonaan karo. Taas labada dhinac amaanta ka imanaysa ayaa loo fahmay ama loo badanaya inuu markaa noqon doono madaxweynaha cusub ee Ukraine ama ugu yaraan sarkaalka ugu sarreeya ee wadahadal Ruushka lala galo geli doona. Tuhmadan soo baxaya ayaa keenay in muranada iyo khilaafaadka gudaha xukuumadda madaxweyne Volodymyr Zelensky ay soo bataan weliba ay soo shaabaxaan. Hore way jireen murano balse waxaa la ogaan jiray kadib marka la haliyo. Hadda halka inta badan marka ugu horeysa ee ay muran wada galaan saraakiisha qaybaha kala duwan ee xukuumadda Kiev ay markiiba baraha bulshada iyo warbaahinta ay soo gaadhayaan. Taas ayaa iyaduna kordhinaysa tuunka ah in madaxweyne Zelensky la gaadhay waqtigii laga gudbi lahaa taladiisa. Dhanka kale wadanka Croatia ayaa baarlamaankiisa lasoo hordhigay sharci ku saabsan taageerada Ukraine, taas oo ay xildhibaanadu diideen iyaga oo intooda badan ay taageereen in aan wax faragelin ah lagu sameynin colaadda Ukraine. Baarlamaanka Croatia ayaa ka kooban 150 iyagoo faragelinta diiday 97 saddexna ay ka aamustay halka 7 kaliya ay diideen. Taas ayaa dhirbaaxo weyn ku noqonaysa xulufada Mareykanka ee raadinaya wadamo ku soo biira caawinta Ukraine iyaga oo hadda gaadhay heerkii ugu hooseeyey ee awoodooda kadib markii ay sanad ku qulqulayeen hub iyo lacag aan loo meeldayin. Diidmada Croatia ayaan keliya ahayn diidmo in dalkaasi uu diiday, balse waxaa xulufada reer galbeedku ay cabsi weyn ka qabaan in ay dhiirigeliso wadamo kale oo iyaguna ay ka gacan taagtaan inay caawinada kusoo biiraan iyo weliba kuwo hadda caawinaya in ay iyagu dibadda ka istaagaan. Haddii ay dhacdo in ay wadamada hadda taageera ay gacanta ka taagaan, tusaale ahaan kuwa ka tirsan midowda Yurub iyo NATO sida Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska iyo kuwa kale, waxaa markaa Mareykanka ay ku khasbaysaa inuu isaguna soo gabagabeeyo. Waxaana jira wadahadallo hadda socda oo u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo Ruushka kuwaas oo lagu wajahayo ama lagaga arinsanayo sidii dagaalkan loo soo gabagabeyn lahaa. Taas ayaa mar kale hoosta ka xariiqaysa in dagaalkan yahay mid gebi ahaanba ay ku guuldareysatay xukuumadda Ukraine. Walaaca iyo muranada xukuumadda Ukraine ayaa ku soo beegmaya iyagoo waqti la sheegayo in dowladda Moscow ay isu diyaarinayso dagaalkii
kama dambaysta ahaa ee lagu soo afjari lahaa colaadda Ukraine.